Howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS ayaa ah in uu kordhiyo tababarka ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ee ku aadan ilaalinta carruurta ee xaaladaha iskoorimaadiyada hubeysan marka ay soo dhamaato wajiga dhimista ee howlgalkooda. Taliye ku-xigeenka ciidanka ADMIS General Marius Ndagamba ayaa sheegay in ka ilaalinta carruurta rabshadaha ay qayb muhiim ah ay ka tahay howlgallada taageeridda nabadda Soomaaliya. Tababarkan ku saabsan ilaalinta carruurta waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si shaqaalaha loogu sahlo in ay mas'uuliyadoodu ay ku gudan karaan ilaalinta carruurta. Taliyaha ayaa sidaasi ka sheegay xafladii lagu soo gabagabeynayay tababarkan oo muddo 7 ka socday magaalada Muqdisho. Marka la eego sida ay shaqaalaha ADMIS ula falgalaan ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waa in sidoo kale tababarka loo bedelaa sida ay u qusayso si kor loogu qaado awoodooda la xiriirta ilaalinta carruurta, ayuu yiri taliye ku-xigeenka ciidanka ADMIS. The training on child protection is a critical step towards enabling the personnel to execute their responsibility with a child protection lens. Tababarkan waxa uu soo jiitay ADMIS gaar ahaan isku duwaha madaniga ah iyo sidoo kale qaybta ilaalinta xuquuqul insaanka iyo jinsiga iyo dabagalka khasaaraha rayidka, falanqaynta iyo jawaabaha, iyo sidoo kale shaqaalaha unugyada booliska iyo goobaha jandarka ciidanka. Waxa kale oo ka qayb galay shaqaale ka kala socday booliska iyo unugyada tababarka militariga iyo qaybta siyaasadda ee howlgalka ADMIS. Qaybaha tababarkan qaarkood waxaa ka mid ahaa casharada lagu baranayay ilaalinta carruurta ee howlgallada taageeridda nabadda, saameynta colaadaha ee carruurta, arrimaha ilaalinta ee carruurta, qaab dhismeedka sharciga ah ee ilaalinta carruurta iyo fahamka xadgudubyada culus ee ka dhana carruurta. The group you're training right now are supposed to be trainers of trainers, and they're supposed to also run trainings elsewhere. So what this means then we needed to also build their skills on how to run trainings, so equip them with facilitation skills, how to build their training modules and execute. Ka faa'iideysiga carruurta ayaa weli ku sii badanaya Soomaaliya, waxaana ugu wacan afduubka iyo sidoo kale askaraynta carruurta ee Al-Shabaab iyo kooxaha kale oo hubeysan. Antonia Jorongo oo ah fududeeyaha hoggaanka iyo madaxa Save the Children ee barnaamijkan carruurta, dhalinyarada, nabadda iyo amniga, ayaa sheegay in tababarkan uu qayb ka yahay hindisaha ururka oo diiradda lagu saarayo xoojinta awoodda jilayaasha dowladda ee ka hortagga xadgudubyada ka dhanka carruurta. Waxa uu xusay in carruurta Afrika ku nool ay yihiin dhibka ugu badan ee colaadaha hubeysan, iyadoo in ka badan 200 oo milyan oo carruur ah oo Afrika ku nool la rumaysan yahay in ay si toos ah ama si dadban ay u qabsadeen colaado iyo in ay la kulmeen afduubyo ay ka mid yihiin weerarada iskuulada, isbitaalada, kufsiga iyo sidoo kale xadgudubyada galmada, dil iyo sidoo kale naafayn ayaa ka mid ah waxyaabaha ay la kulmaan carruurta Afrika. Afduub iyo sidoo kale waayitaanka iyo diidmada ka dhanka bini'aadanimada, ayuu yiri. Faadir Karaar oo ka mid ahaa xubnihii tababarkan qaatay ayaa sheegay in tababarkan uu ka helay qalab iyo sidoo kale aqoon si ay ugu warbixiyaan ugana warhayaan xadgudubyada ka dhanka carruurta. Waxaan ku baaqi doonaa qalabkan si aan u hubinno in hababka la socodku ay yihiin kuwa lagu taageerayo dhammaan qaab dhismeedka iyo qaaradda Midowga Afrika iyo sidoo kale qaaradda Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayuu yiri. Ka qaybgalo kale oo la yiraahdo Maria Congo sidoo kale ah ama ka tirsan qaybta militariga ee ADMIS isla markaana ka tirsan xafiiska jinsiga, ayaa sheegtay in 12kan ka mid ah ka qaybgalayaashu ay la imaan doonaan qorshe howleed ku saabsan sidii ay ula wadaagi lahaayeen aqoonta ay heleen, isla markaana ay u faa'iideyn doonaan dadka aan fursadda u helin in ay ka qaybgalaan. For us to come up with activities, programs that will make us reach out to those that haven't been able to be part of the. Tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda Save the Children International oo kaashanaysa hay'adda la yiraahdo BHRJ qaybteeda missionka, waxaana taageeray Midowga Yurub iyo sidoo kale dowladda Sweden. Marka loo eego axdiga Afrika ee xuquuqda iyo daryeelka carruurta, inta badan carruurta Afrika ayaa weli
waxa ay ku nool yihiin halis iyadoo ay ugu wacan tahay arrimaha gaarka ah ee duruufahooda dhaqan dhaqaale iyo sidoo kale mid la xiriirta korriinka musiibooyinka dabiiciga ah iyo iskoormaadyada hubeysan ee dhiig miirashada iyo sidoo kale gaajada. natiijahan dokumentigan waxa uu sidoo kale intaa ku daray waxay u baahan yihiin ilaalin iyo sidoo kale daryeel gaar ah si loo xaqiijiyo biseylka jireed iyo maskaxeed ee habboon.